sida caadiga ah edhifyada dunida dalalka Brazil iyo Australia iyo xaqiiqooyinka inay noolayaal kale ku nool yihiin koonkeena xogahaas iyo xogo kale waa qodobada ugu muhiimsan ee ku daaqaan doono barnaamijkeena dalalka Brazil iyo Australia masaafo ahaan waa dalal isku jira 3.288 milyan oo kiiloomitir ayaa wadaaga marin 8,000 oo kiiloomitir ah oo hoos mara biyaha badda kuna nool yihiin makhluuq sida aadamaha oo kale ah dhererkooduna uu gaadhayo 3 mitir lehna awood jeed iyo gebi ahaanba ka dhacsan horumarka dunida makhluuqaadkaasi kuma koobna aadamaha oo kaliya laakiin waxaa jira daanyaro ka duwan kuwa aynu dunida guudkeeda ku naqaano geedo jiridoodu leedahay dhumuc weyn oo ay gaadhayso ilaa iyo 8 mitir waa bulsho dagaayahana ah iskuna filan dhanka difaaca diidana in ay cid kale oo ajaanib ah soo dhex gasho marinadaasi biyuhu ay hoos maraan ayaan sahlanayn in dhanka shishe looga baxo waxaana ku xanibaya qolqolka fulkaanaha iyo buuro xajmigoodu dhaadheer yahay waa bulsho aan dhaqan wax xoola ah laakiin ku nool qaabkii qaraabka iyagoo xabadooda tufaaxa ah ay leeg tahay madaxa dadka caadiga ah waana dhul u badan kaymo dabiici ah deegaan ahaan waa dhul qaboobe ah 5,000 oo kiiloomitir marka aad gudaha u gashana socodkaaga ayaa noqonaya mid degdegaya jidhkaaguna uu kala baxaya taasoo keentay in makhluuqa caadiga ah aanay marnaba u suurto gasheen inuu ku noolaado marxaladda caynkaasa 23 bishii Juun 2016 ayay ahayd markii ugu horeysay ee uu satellite ku sawiro deegaanadaasi iyo biicadda dhabta ah ee ka jirta